waxaan u gudbinaa sheekh saciid raagi muxaadaradiisii ahayd ha yaraysan kartidaada ama awooddaada sheekh soo dhow insha allah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوتي في الله وأخواتي في الله، اعلموا أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وحلق السوري صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين أثر لقى السوري أو موقوفة أو صحيحة صحابي لأورنشري أبي سعيد الخدري. صحابيgaasi wuxuu yidhi man qara'a suurata alkahfi yowma aljumca adaa'a lahu nnuur maa baynahu wa bayna beyt alcatiiq. wuxuu yidhi qofka suurat alkahf akhriya maalinta jumcaha ilaahay subxaanahu wa tacaala nuur iyo iftiin buu dhakadiisa ka bilaabaa ilaa iyo beyt alcatiiq. beyt alcatiiqna waa xaramka malaa'igtu ay ku dawaafto waa qofka suurat alkahf akhriya. waxaa markaa laga soo wariyay saxaabada inaynu jumco walba akhrisanno suurat alkahf. waa atharun saxiixun mawquuf. laakiin ta inaga maqani waxa weeye war maxaa inoogu amray inaynu jimco walba suurat alkahf aynu akhrino? maxaa la odhan waayo suurat albaqara akhriya ama suurat adhaariyaat akhriya ama alwaaqica akhriya ama suurat maryam akhriya? maxaa inoogu dhiiri geliyey inaynu akhrino suurat alkahf? ciladaha iyo xikamka ka midka ah sababta ka mid ku jira waxaa ka mida inay suurat alkahf qisas fara badan afar qiso inay ka hadlayso. afartaa qiso waxaa looga baahan yahay qofka muslimka ah ee mu'minka ah ee mu'minadda ah inay dhuuxaan oo inuu qisadan ilaahay qur-aanku sheegay dee qur-aanka ilaahay nooguma sheegayo sheekooyinkan sidaynu riwaayad oo kale aynu daawanayno, laakiin meesha xikmad baa taalla, cibrad baa doon in laga qaato, mawcida iyo meesha lagdoon laga barto. maxaa ka mida markaa qisaska? anigaan doonayn wada dul maro kulligood, mid baan doonaya laakiin inaan isku taago oo bal taa aynu maanta wax ka yara faa'iidaysano. waana qisada ugu dambaysa afarta qiso ee kasoo suuraddu ka hadlayso. waa qisad ninka la yidhaahdo qisat dhulqarnayn. dhulqarnaynna
Soomaali waxda ninka labada gees leh oo marka la macno ninkii labada gees lagu macneeyaa sababta loogu magaca loogu bixiyay ninkaana cid garan mayso Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wuxuu yiri kana nasihan lillah ninkani nin Ilaahay subhanahu wa ta'ala u go'ay buu ahaa dadkiisa dacwada ku fidiya فضربوه بقرنه فقتلوه كونها سيد دبا إنك قدفتن بد ويدلين قال فأحياه الله ننكي وهدنا إلهي مرلبات سونو ليسي فناصح قومه غير كيسيبو كن نقضي داد كيسيبو كن نقضي دعوت بو كفديي وحد فضربوه هدنا كونها كلايك قدفتن بد ويدلين فسمي ذو القرنين إله بدنا سونو لويسيي ومركزيي سلطان يملك قارك على واحد كتل مامان ذو القرنين واحد لوجو بحيي لبدا القرنية لبدا جيس أدونك أيو قاري المشرق والمغرب قال واحد إلى هذا نوح حكومي فرس يروم labada dawladood markaade ugu xooga weynaa ee la tuhmayay ee lagu sheegay super power labadii buu xukumay bay ilaahdaan saddex qiso ayuu marka Ilaahay soo qaatay oo ku dhacay ninka ta ugu dambaysa ayaan doonayaa inaynu baliyarata taabano Ilaahay wuxuu yiri yasalunaka an dhul qarnayn marka hore Quraysh ba ka yaabtay quraankan uu nabigu qururuxinayo هذا كان قروح ذا بدن ميرهن لسكو دبتحي أيجو أهل البلاغة يفصاحة أيجو لقدم بيو مركي تماد الجبايض يدعي عنك عربي ذا اللغة ده أيو ننك النبي صلى الله عليه وسلم قرآن عجيبة هذا العجيبة ليمي يهودي بيت دونتين يهودي بيردن بننك نوجا ورما نبي يسكو شيء يقالوا فسألوه عن ثلاث صدح ويدية رجل طاف في الأرض نن أدونك الصومري وننك المركة ذو القرنين إلهي مركة وحيري يسألونك عن ذو القرنين وحيكا وريسنا يا نبي محمد عن ذو القرنين صدح قصة أي مركة إلهي صوب بندق مرور بإلهي وحيد هذا ثم أتبع سببا مركو قصة والبرد لما يو ثم أتبع السبب أي كبل باقصدي كلا تهرنا مقدمة أنه قطت الضنبنا علماء وحدين السبب كان مركا وامحي وحيد هذين وعلمي إلى هاي كان علمي أيوسيي وحسي قوة وحسي أسكر وحسي ميلتري وحسي هوب وحول بنين كوسي حتى إذا بلغ بين السدين مركو الله بورا سو دحتاغي لبدي بورد وحو ugu قوم لا يكادون يفقهون قولا ضد عد أفقرت لا يهي وأف عجيبة كهضلية ذو القرنين وحن لقو يقاني ميال ولو تقو يعد ولو لا دقال أفكود أي كل حد لكن قلدا عد أترجم تالواي قلدا مركم حيدا قالوا يا ذا القرنين وذو القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض لبضع الرير يأجوج ومأجوج وضد مفسدين يأجوج ومأجوجنا وضد كمد الضرية النبي آدم عليه الصلاة والسلام وحين قد ويهين وضد آد أتربضا ورحمد أي كي يرتهي oo meel walay soo maraanba intay gacanta sida u mariyaan abaar iyo balambal iyo bayhof kaga tagayaan tiradooda waxay noo tilmaamaya xadiidka nabiga sallallahu alayhi wa sallam laga soo wariyay xadiith al-qudsi ama xadiidka nabiga ka soo wariyay ilaahi an rabbih fi sahih al-bukhari wa muslim wuxuu yiri nabiga sallallahu alayhi wa sallam يوم القيامة أيو أرنا يا آدم فيقول لبيك وسعديك هي إله يوم فيقول بعث النار ضدك أهل النار تأه
عذابت الله قلت لك لي صو أروري فيقول وما بعث أهل النار بعث النار ومحيطتك عذابت الله قلت لك شيء واعي فيقول من كل 1999 وواحد في الجنة وحيلكم كيبا سقال بقول إيا السقاشن أي عذابت اللقلين إيا مدبا كبد بادية فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ يشيب الصغير فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان الشيب إليك يري المها يربع الريسانية قبل أورك هيدا أما وحسدنا وحي أي سدي ويتوريسه وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى صحابة دي مركا النبي صلى الله عليه وسلم قال فاشتد عليهم الأمر ويابين فقالوا يا رسول الله أينا ذاك الرجل ننكا بدبادة يوم القيامة كنك كبد بادي إلا كنك بنبا كبد بادي النبي يقول ننكاس يون قنيا ويا إلى أمدي النبي محمد حالي مركا كنك بقف كبد بادي أمدي مركا ننكاس واعي فقال النبي صلى الله عليه وسلم بشروا والبشاريس تبويري فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم رجلا يأجوج سقال بقول يا سقال يا كن بكمل مركا كن عذابت قلبا مد بايدين عذابت قال يبول النبي صلى الله عليه مركا تريد وضدوالا وشددي ضدكي waxay ku yiraahdeen dadkii dul qarnayn waxay ku yiraahdeen yaa dul qarnayn noo waran bayda way warameen caynka saajirta hal naj'al laka kharjan ala an taj'ala baynana wa baynahum sadda dul qarnayno kharash ma ku siinaa bay ilaahdeen wax ma ku siinaa xoolo ma ku siinaa waayo yaajuuj wa maajuuj mufsiduuna fil ard labada buurad dhexdooda qoladan yaajuuj wa maajuuj intay ka soo tallaabaan ayay khayraadka dadka qaataan dhalinyaradii inamadii yaryaraayee dhalinyarada haaya islaha wadankiina difaacana way laayaan hablaha inta ugu quruxda badanna way ka socdaano way ka qaataano way ka haystaan qaarra way dilaan ragina way dilaan mufsiduuna fil ard buu yiri laakiin xikmaday bal yimaadeen dadkaasi eega waxay yiraahdeen aanu ku siina lacag adugu maad naga ilaalin dadka oo maad naga celin waana casnimo waa ayaan daro inuu dad dhan shacab dhan inuu isku tiiriyo oo isku hadleeyo qof kale oo dibadda uga imanayo inuu mashaakilkooda u xalleeyo waa aad bay nacasnimo u tahay aad iyo aad inaad sugtid ama ha noqdo gaal ama ha noqoto hay-ad khayriya ama ha noqoto organization kale inaad adugu aad tiraahdid halkaasaan fadhiyaya waxaan sugayaa intuu qof mashaakilkayga oo mashaakilka jaaliyadda iyo bulshada xallaynayo dee aad bay u xun tahay dul qarnayn markaa dadkii daris buu damcay inuu baro qaala maa makannii fiihi rabbii khayrun ilaahay wuxuu i siiyey ayaa ka fadli badan oo ka khayr badan waxa ii sheegaysaan waatuu nebi sulaymaan markay balqiis ay tidhi hadiyad baan u dirayaa bal waxay kaga soo war helaan ay war inooga soo war celiyaan baynu eeganaay basuga qaala atmiddunani bimaalin fama aataani allahu khayran mimma aataakum bal antum bihadiyatikum tafraxuun wuxuu warmaan aniga lacag siinaysaan maana xoolo u baahan tu ilaahay isiiyey ayaa ka fadli badan dul qarnayn markaan wuxuu yidhi فأعينوني بقوة وإذنكو إعاوية آتوني زبر الحديد زبر الحديد ومحي مركا وبروح حديدة لبدي بورات أيو ذو القرنين رحمه الله لبدي بورات لحدودي بكبو حي حديد ضدكي بو إلى شقايا أذكرتي سي أمودرن أمو أرنين lacagta isiiya dahabka isiiya diamanta isiiya baatroolkiina isiiya ana idin dhisaya halka iga daawada hadhowna marka idin ka tago
وإذن كاس إسدبرة ماي إذنك وقبصة بويري إذنك هلا إذن كهلا شقيستا فأعينوني بقوة والحوق يقول عاوية وحن إذن درو كالصوبحة درس إنه كفى إذن مركا وامحي وحين كفى إذن هلكا haddii aynu doonayno inaynu bulshada Soomaaliyeed inaynu badbaadino oo ay meel gaaraan inaynu isku hadlayno educationka systemka wadanka jira ma aha inaynu isku hadlayno caydan wadankan uu bixiyo ma aha inaynu isku hadlayno systemka waxaan la yiraahdo court system ee caruurteena jeelka ku afuufaya ku ka buuxiyay ma aha waxa loo baahan yahay hadii la doonayo inay jaaliyadu isku taagto lugaheeda inay dadka kamid jaaliyada ee bulshada inay ayagu soo kacaan ay wax u qabtaan inay idinku wax qabsataan ayaa loo baahan yahay ina tiraahdaan Sheikh Mohammed Roble ama Sheikh Mustafa ama Sheikh Ummal ama Sheikh Dirir ama Sheikh Hebel ayaa noo imanayo mushaakilkayga xaleynayo raggan iyo dumarkan isfuraya in dawo u haya dhalinyaradan lumay mid baa loogu yeeri wax u akhriyo way hagaagi oo dabada ay madad ka dalbano xal ma aha xalku waxa weeye inuu idinka yimaado idinka oo la yiraahdo war maxaa inoo tala anigoo garanaya waqtigu inuu isgurayo caruur farabadana meesha joogan dumar marwooyina in badan ay meesha fadhiyeen rag waayeelina meesha ay joogan waxaan jecelahay inaan soo gunaanado dhowr nuqdad ku soo koobo war maxaa xala kow ta ugu horeysa xalka lagaba maarmaankii waxa weeye alwahda ina la midoobo waa lagama maarmaan xal kale ma jiro meel kale oo laga doonayo xal oo loo oranayo taasay inoo dawaa oo aan taahay ma jirto ama ha noqoto wadankii ama ha noqoto halkan ama ha noqoto North America ama ha noqoto meel walba innaka oo iskaashana mooyaan waxba inoo hagaagi maayaan carabaha inta badan waan wada tagay waan soo wada maray Yurubna waan tagay intooda badan Mareykankana waan tagay Soomaalida meel qura ayaan ku arkay dad Soomaaliyeed oo isku duuban waa dadka inaga jooga Kuwait Soomaalida Kuwait joogta intaan anigu soo maray meel ka laga yaaba in wax ka soo ka muuqdaan laakiin dadkaas waa dadka qura ee isku xiran maxaa dhacay marka waxa dhacay inay dawladda Kuwait ay taqdiir siiso ixtiraam ay siiso mas'alad wala ku saabsan Soomaalida ilaa ama xitaa ajaanibka ilaa Soomaalida lagala tashado qaraar ma gaaraan dawladda Kuwait qaraar ma gaadho ayagay la tashataa qawaaniinta lagu soo dejiyo ajaanibkana dawladda Kuwait Soomaalida way ka socda waxay raadaan waa dad is haysta oo meel ka soo jeeda waa dawlad qura waxaana jooga Soomaali aan aad u badnayn maxaa inaga jabinaya oo inaga burburinaya waxdadeena waxyaabaha waxa kamida anigu waxaan la hadlayaa dadkan muslimiinta ee masaajidada jooga ee muhaadaraadka imanaya waxaan ka hadlayaa arrimaha waxyaabaha ugu horeeya waxa kamida xisbiyo diini oo la galo anigu waxaan arkaa inay yihiin arrimo laga wanaagsan inay tahay in laga wanaagsan yahay oo hadaynu noqono kullu xisbin bima ladayhim farihun oo qolo walba inteeda durbaanka u tumato oo tiraahdo annako magaca la ilaahada groupkaasaan u haysana intaasaan noo xareysan oo madhabka iyagu waa caynkayo manhajka iyagu waa caynkaaso de ma anzala Allah biha min sultan ilahayna wuxuu inna hadhihi ummatukum ummatan waahida tan waa ummadiina waa ummad qura Umar bin Khattabna wuxuu oran jiray al-mu'minu dha'ifun bi nafsihi qawiyyun bi ikhwanihi qofka mu'minki kaligi waa dhaif waa naafto
أوليتا لكن ولا الذي مركز بربر تاغو قوة بولية حديث حسن كان وحوي نبي يقول إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية درواغو وحو أريا كعنا هلكا وقبحضة هلكا وحارت هلكا تستاكتا أما اللحظة هلكا استاكتا أيو درواغو لبوده إنكم مركن إسكالا جويني أو كلا فوقاني عد ولبا عدو ولبا أرتوح ورانيا وفيكتيمز كندا بل وفير صدا كندا نبا دونيا ينوس إنه سياسي وقالا وقال وحدونيا فوتس بودونيا سومالي دي بو يمي سومالي دي باتريك وأنا أنك كوفود قرين مينو عين كسر أفود قرين إننا ويوم من سن مبادئ أدو حنبار سنتي وحقول جواب ما قرنسا هكور ورينا بويلي خير هبل بايلا السعودية وننقالوا عط هذا وحير خير هبل أيام كنت الله لا يعرنا يا خير هبل بايجي سهر شيء إذن كإصرار راع إنك بين لقوا عيارية هذا وقال ويوحي قرتين فكريين يعين كنو النهي يميلها إن لقعنا أي قرتين مركا أوران ما ينين كان مبدأ ويجسو هرتشي دا يوا الصومالي لكن وحيري وحن كتشبين يا ضد كيجسو هرتشي دا رير هبل بان أوران يا وضد كاسا قلدا سيجسو هرتشي دا يصور راعو مركا رير هبل مقلان ويصور راعيا سي كلمة شرتو كي قال كأها أيا نقول دانسانا يا أوركيس مركا حركات كان أورانيا رير هبل بانو نوع من القبيلة وقبيل عصب هل كي وحلا يقان رير هبل باطي أدنى رير هبل باطي أمدق مدى ساطي عن إمي كان واحد للي يريدي يودادي أصوب حي حركات داسانو نهي حزبي قاسانو نهي سيداسانو نهي واش قبيل كيو شارك للصوحي لي نبي صلى الله عليه وسلم حيري تركت فيكم شيئا إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا الله بشبيل كتجة هذا هاي ستان بويري وليين ملو ميسان كتاب الله وسنتي كتابك إلهي إيوه سنة ديدا في حديث حسنه ابن تيمية وحيري عليكم كتاب الله وسنة عترتي سنة ديدا السنة الرير كي يقول النبي صلى الله عليه وسلم مو أرنين حزبية إيو جروبية إيو مقعية إيو ما أنزل الله بها من سلطان ورمركا هليس إلاليو تكلا وحدد أبا هنتهي وحوي قفك مؤمنك وإنه ولالك عسكدا وإنه أنه ولالك عسكدا وإنه ولالك عسكدا وإنه إلى هذا لا أنت ميل قاري مايو يقرب معها هل بولها جو معها بقنت شر معها وحوي ولالك وإنه وتيرني أنا وان كنت تيرسني أصلا كنت تيرسني تلو بهني ولا لا وتا قودنا وتا إنك أنا واحد لو بهني individuals مركز شخصي تمادو إنه لن مادو مبدأ قوية أو تاجن أو قصة ليسن كتاب الله وسنة رسوله نبي صلى الله عليه وسلم حجري المؤمن القوي مؤرن هذا ضفر بدن مسلمين تمؤرن وحولي المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير مؤمن كقوي جاء أي إلهي شعلي هي وأنا أصور دويستا مؤمن كمركا مؤمن حوق مرقية ووين الدبية معها مؤمن كقوي وحوي ومؤمن مبدأ له ومؤمن فكرة له ومؤمن كلمة له ومؤمن جديسن ومؤمن طريق مرة تسوامد الوحدة طلباتنا وحوية إنكم وحقوق بسنكرة الله عليكم الله ورد اللي يرده هنلو إلاليو ورد اللي يرده هنلو بدباديو ورد اللي يرده يان لدلينين تتكن ميشة شوغا ورواح ويي وإلمهد دبدا دكتير تورتد ويلبو ديان ورعرورتين إلى شنو عرورتنا وعرور
ayagii waxay u baahan yihiin wax mashquuliya innaka sidii inoo soo koriyey dee innaka waxayna soo korisay bulshada yani haddii ilmaha Soomaaliyeed anigoo yar yani tusaale soo qaadanaya anigoo yar ayaa malcaamadii ayaan jaray oo dee macallin maalin bay ku garaacay mid u tii kartaa maalin waladka lahdi macallinku soo garaacay marka maalin baan jaray macallinkii baa laba kabiir buu ii soo diro waa la soo qabtay wuu i karbaashi si wanaagsan buu i karbaashi anigoo ooyaya ayaa dhexda nin bay igula kulmay war maxaa kugu dhacay macallinkii baa i karbaashay oo maxaad samaysay imuu odhanine asna wuu i karbaashi macallinkii judhiyu yani wuxuu siiyey inuu macallinkani sax yahay anigu qaldanahay inuu macallinkani uu sax yahay oo anigu qaldanahay ayaa u qiran ayaa u cadalka u taala gurigii baan imi hooyaday baan ku soo cararay war maxaa dhacay macallinkii bay dilay ayaduna way dishi lima weydiinayo maxaa ku dilay marka inaad bulshadii ayaa ku korinaysay wadankeeni halkan laakiin ilmihii waxaa lagu qulaaminaya oo maalin walba subax walba lagu qulaaminaya yaa ku soo maagay maxaa lagugu yiri maxaa lagu siiyey ilmihii waa ilmo yar caqligiiba marka laga dooraya ilmihii oo nasakhan oo asagu isu haysta inaanay cidi la hadli karin oo atoora yara ayay adna markaa doonaysid inaad dhirbaaxdid ama aad kabaysid ama aad guriga ka saartid caruurtii markaa waxay u baahan tahay ina isluub islaamiya lagu soo dhawaysto caruurtii ayagu they wanna have fun waxay doonayaan they wanna enjoy themselves marka qofkan siinaya ee waxaan entertainment ayaga u soo bandhigaya ayaa raacayaan qolaa jirta meel yar baa la yiraahdaa xaafadayada naga yara fog waxa la yiraahdaa Thorncliffe mantiqada boqolkiiba 90 waa muslimiin businessku waa muslimiin dukaamada waaweyn xitaa gaaladu ay leeyihiin wax ka shaqeeya waa muslimiin building waxa annagu ma lihiin idinku afar dabaq baad idinku tuula joogtaan moogtay annagu waxaan joognaa magaalo marka annaka waxaan tirsanaa 120 iyo 150 dabaq iyo 60 dabaq iyo xasan tirsanaa wala buuxa waxa markaa noo yimi dadkan hindi ba u badan iyo Pakistan iyo Bangladesh waxa u yimi reer cad oo de gaala ah oo isqaba aan silmana ogaan baba meesha loo dajiyo wada xitaa aqal maran kama helsid meesha laakiin way soo galeen mugtaba wax la darsay raggi maxay sameeyaan raggi cadcada caruurtii muslimiinta ayay ururiyaan kubad bay ciyaarsiiyaan pizza ayay siiyaan markuu kubadda laga yimaado waxa loo soo qaadaa donuts iyo macmacaan iyo pizza iyo ayaa loo keenaa iyo fries iyo chips baa loo keenaa caruurtii marka maalinta ay ciyaarta leeyihiin ee gaaladan u imanayso minute ma habsaamayo minute albaabku taagan sida askari sida goolwada yar halkaasuu taagan yahay waa diyaar inuu baxo markuu tago muslimiin ma arkaan garoon baa lagu hayaa muslimku halka uu istaagaya ninkan gaal waxba ma sheegayo muxuu ku beeray laakiin wuxuu ku beeray inuu ilmahan yari ninka gaalka jeclaado uu jeclaaday tacallaqa bih ilmaha gaalka markuu arko suuqa ku arko wuu ku soo cararaya macallinka quraanka markuu arkana uu ka cararaya subhanallah waayo macallinkii homework buu u diraya wuu hiifaya wuu dagaalaya wuu dilaya waxa uu oranayaa ma sameyn kartid fankii buu ka jaraya gaalkani laakiin ilmihii buu isjeclaysiiyay dumarkoodii maxay sameeyaan dumarkii muslimiinta ahaa ayay shoppingka geeyaan hadda qaxoontimaha dadkani waa dad in badan deganaa wadanka shopping bay geeyaan dumarkii bay soo caawiyaan oh we can take you halka waanka dumarkiina xitaa dumarkii muslimiinta xijaabna dumarkii gaalada ay aamin waqtigu isgurayaaba leeyahay saddex mar baa leeysiiyay ta kale barnaamijkan waxaan jecelaynaa in ka wada fadhiisano dhalinyarada wadanka jooga insha Allah bal inaan sii faahfaahino tasaddexaad
وحويه ور إلهي رقبوا نقدق حول يلا حاد بوينو هينا فكر يا رأينا إنك ما مقنو إنك ما فوقا ور عرورتنا إنه قصو صار إسكولة قالدا أي تجانو إسكولة إسلامية السمايستا نعمة هايستان حدانا أنكو هايسنو والله إنا نقف مسلم كوك الله يسكول قالت أنكو عرورتا يدا بقول كيف بقول أنك كبحنا private school أو إسلامي school دولة شيل النجو مكبتو بالعكس أيضا ونقد بشقة يسوون سألاب كني معها based on the standard كماها إن بصص كني is not safe school جيمكو موينا أيضا ونقد بشقة يسا ونرد على حدنا إذن كنا ودن كين وحن مقلي هدا school يرفرتان دولة دابا بقول كيف بقول أرد والبلعك إذن كسينيسا وأن أوجا إنه restriction فربدن إنه تشيرو لكن ده أفيته ركباتين وحسك عليا عرورتي النبات بات سدا هديك لو والله وحن لو سو قلامين يا مالي والبا ويكفى أيان لو ويقادنيا وعرورتين واكوسو دي وي نو أرق إيجيهين وي نو سان إيجيهين لكن ده يسكو مبدأ يسكو رأي يسكو فكر منهن وايو المشكلة دي وحوية نمبا صور دانسان يا مالي والبا يعني شيخ كشك الله يرحمه وحو أورنشري markuu iskuuladani system ka hadlayo wuxuu oran jiray kal qabri tahuffuhu az-zuhur wa tahtahu dafanun afin waa sida wuxuu xabaalo tushana ubax quruxda ma laga daadiyo hoostana qurun baa kaga jira waa xabaal marka iskuulan waa lagu soo qurxinaya ilmihi waa lagu soo raraya asagoo heeriyaysan oo ku ayaad adna marka isku dhacaysaan ta'afaraad أن جعلنا كجهد له ور صومالي بينو النهاية وينو إسناقاناية أينو ميت سماينو أينو بيزنس قلو بيزنس أينو قلو ووحا سماي ستان وحلا هذا صومالي بيزنس أسوسيشن of Sweden دلايت سمايست دلايت دا business Soomaalida oo dhani ha soo dhex galaan soo hoos galaan mushkiladan haysa waxa weeye islaamba meel yar fulanayso laba diric iyo afar googaradeed iyo xabad yar xijaab halkan albaab yar soo taagaysa mid kada goday ayaadna aydo intii in leeg soo dhiganaysa ilaahay subhanahu wa ta'ala wax walba wuu xalaaleeyay maxaa inteeda in leeg kugu saliday maxaad wax kale u soo dhigan weyday maxaad uunsi iyo cadar iyo xawaashi u iibin weyday ma naqaano meel baa dirc yar bay ka furaysaa marka haddii aad samaysaan associationka waa nadaaminaysaan waxaa ku samaynaysaan war fikrad aynu fakiro caqli ba ilaahayna siiye hodheel yarba meel laga furaya afarba ka ag furaya faa'iido ma leh businessku waxa weeye inuu ninkana aflaxo saddexdaasoo aflaxay barnaamijkii dhalinyarada in bulshada iyo mashaakilkoodii miisaaniyadii ayaga bayna caawinaya ma hayna inaku isku erino waxa weeye inaynu afkaar cusub la nimaadno saxaabadii nabiga sallallahu alayhi wasallam midi ceel ku dhaamo ka shaqeysan jiro Ali bin Abi Talib ceelalka ayuu dumarka u soo dhaamin jiray intuu ku tura wadaanta ceelka ayuu soo isaanta biyo ugu shubi jiray in maqaarkeeda ay sidato in saxaabi kale waxaabuu doonan jiray afar saxaabi isma soo agtaagan Ali ma oranay ceelka baanu ka dhaaminana nakuna laguma aqoonin caynka waxa weeye ilaahay fikrad buu nasiyay عقلي بينسي دينتنا وين نوع عديس عنك الله سمية تجارة يا بزنس تاسنا وامد تشناد إمك ولكن محمد أرنتن وكيمي إن وكشيء صومالي وكليو وأرن آد لوجو فرح آد والله فرح إن هكذا نريدكم مد لمدة أو سميسان مركي تمادو بولشة مد بنش علينا كي يرد درو لأن يرد كسابسن war waxaynu u baahanahay hadaynu jaaliyad Soomaaliyeed aynu nahay inamadan qaar ba u amoon oo aad iyo aad ugu haraadan diinta
واركحية درع بولشدي الناس أما هالنقطة مساجد أما بدع عسى النقطة أما جروب رسلها النقطة أما جروب كذا يرد وضعنا وكلا ورميها الدا المهن إنك لصدح أما أفر عرورة أنت الدراتان والدين تأوجا أي وأما مصر جيستان أما عربها جيستان أما ملك جيستان وصدح أفر سنة علماء دي صوفني أما حتى الصومالية جيستان وصدح أفر سنة أنتو صوهوس فرديو إذن صون نقطة وعرورة أفكودي كل حد ليا ودقن كي لا جرانيا وأنك نبدل ولا دالي أنك وانو دالي أنك نبدل وبالشو ولو community ولو أنت إنك سمية أبو هريرة مساجد كان شغلي بريجي هريرة أيان ورك بالكالين عروتيني ندي وتقارنا ولي ما عروت قاركود ما أتكان هبلاه نجوا ما تكون أحسن إن جميكا وصوم مسلمي وسبحان الله نمكن يوحوها شقدي سواحي هيد إنه تتكلايو ما هين وح صحضه شقدي سواحي إنه قفك الله صودل وصودلية وصونقنية وحوها criminal بوها ننكبا مسلمي ننكبا يومي حفيز كودي السعيدة وحن مغلا إن عروتنا درسام وان دباني إم سيد كلف أبوه يلي إن المال لقوها يوم مصر بانك دون ودره عربي ولا صبرية حافظ القرآن بان لقى صور لقى ألف يا باء لقى صور بلا بيا شيخ بالله فريسان يصدح فرسان نضاد بيشيوح نكلف الله $100 community قول نبو كلف الله $100 إن كيبا يلي يركينو متى يعني أنا جاي إكحية حنقولي why وحولي because مركن قال أهابو يلي and توجها and criminal كها I was the best بو يلي مركن اللي دوين للدرو نك خارجي لي أنا جو هابولي دليست أنا نمبرون كهابو يلي إن عيد لصوديلو إن عيد لصود أوعو إن مل لص أنا جو أبو هايلي مركن مسلمان I wanna be the best I don't wanna be رجل المؤمن بولي I wanna be the best وتجي سبحان الله إمي كمرا صدح السنة دي برد بكون مقين صدح السنة دي يبر درت بوح بلابا إنه وح ألفه إنه وح براك إنه كصون نقطة إنه بولشدي قاعد تكو قبته عرورت هنا يريد المساجد ده فرديا إمي دلوا إنتو كوفي دي رسل عالسوقات يا خميس يركا قابن وهالكان صوفر ليو بين سو شيء وليه حمان برانا يا ماشي كسارة أو درا إنان إسقابا أو يسوق جوريسين كحية دير الله بضبا إنان تنو حبي الصوب برانا يسا إنان كانوا حبوا الصوب برانا يا شن سنة كبعدي وحيدين إيمانية قف داعية وعالمة إنان إسقابا أيدنا هبله بيدين ك ما شاء الله مسؤولية قادسة إنان كنا مسؤولية دل يردو قاضية وسيم very easy تشنادم كسو جنانا ده يا وحوي وإن وحوض قبسة كمدة حالنا وان كله فتعرفك ما أنت لو نكون علينا إياه والمشاكل كعروت وح وليبا لن يرد وح أقوم مهيمسن جور بقوم مهيمسن جور كهلا حول يريو هو يوين فربضنا هل كان شوقا جزاهم الله خير ويوناك سيهين لكن قار عجيبة شره قار فربضن باكره ويرتي دوني كبايع مشتريان وإنتي أروس كيدي يا مهر كيدي يا فنشان كيدي يا سفر كيدي يا فردي كيدي يا سرير تيدي وحيكلف يسا كمانكم هم قاربان يبسانية كمانكم ورقورك هو حول يري النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد والصحاح والألباني قال من يمن المرأة قبل بركة لوحة كم ذا بويري تيسير خطبتها إنما إندونيستيدو يدا مهر كيدو إنه حول يرادان وتيسير مؤونتها وحكب حانة إنه حول يرات أو ده وحبلا إن عيرو ده أنت لو بهي نقطة إن الدربانة لتمتئيو دقدم إيو عينكا إيو هل أفر بغلقف هل عزومي وحال الله مبهنا وإن كإن أنت الله يسكو أسترو الله حول يريو إلهينا سبحانه وتعالى تحسنا وأيو وبالشدة ما أيجا وبالشدة ومساجد ودتك وحبرة عروتة معلمين تا مسؤولية دودة ووالدك مسؤولية دودة وحوية دتك كشقية social service
waa mas-uuliyadooda anagu meel walbaan ka sheegaa 7 qof baanu samaynay 7 dhalinyaro 7 way aflixeen subxaan allah 7 waxaan u samaynay ayagoo yaryaroo jaamacadda aan gelin ayuu mid inan walba sidii inanta maanta sheegatay nin baan jecelay ii guuriya waa tiyo miidhan iyo kiyo miidhan keebaa jecesha baan ku idhi adeer kaasay tahay mijaha yaryar halkaa maarta sii socdaa kaasaan jecelay waan kuu soo qabanaya waan soo qabanay kii baanu soo qabanay war adna yaa doonaysaa taayar baan doonayaa aydana waanu soo qabanay reerihii baan la hadlay war carruurtan way is doonayaane halaysu hawl yareeyo 7 baa loo isu guuriyey waxaanu kula heshiinay laakiin inaanay wada noolaanin inaanay uuraysu yeelanin waa daruuri waa dhalinyaro iskuursaday haddii wada deganaadaan ama inantu uuraysto inantu markay uurayso dee way isbedelaysaaba way isma garanayso ayadii ilmaa ku dhexdeeda subxaan ilaahi ku abuuray emotion limaha stable asaguna wuxuu war waa arrinta tani waa ka dalqada u tuuray marka waxaan lama ogola labada ilaa inta isku dhamaysanaysa reerihii baa kala hayay weekendna halkan bay wada joogaan weekendna halkaas ay wada guri kale wada joogaan labadii waalidna carruurtoodii way u badbaaday carruur inankiya inantina way is ogyiino inankii subxaan allah inan walba wuxuu noqday mas-uul 100% subxaan allah guurkuna waa mas-uuliyad moogtay mas-uul buu noqday galaasadii la jarjaraya iyo low mark iyo inuu wax la yimaado abad waa the best galaasadii course waayo nin walba wuxuu leeyahay dee xaas baa iga dambeeya waalidku wuxuu kale wardeer reer baa kaa dambeeya ilmihii psychologically waa buu koray inantii waxaa la leeyahay waxa in maxay ahayd kaafiyaad iyo cereal ninka ku quracsiin maysile caanka la xoxda iyo canjeelada iyo loo sameeyo beerka iyo basasha iyo sabaayada iyo isku dhex kariska waxa baro way baratay iyadana gabadhiyo dhisan iyo ninkiyo nina ayaa iskuulkii dhameeyay 7 hablood 7 ba judii maray ka soo baxeen iskuuladii midina shahaadadii kuma shaqaysanin mid walba way uuraysatay guriga bay fadhiday 7 inana way shaqeeyeen wada shaqaale imika 3 carruur maraya 3 carruur happy way carruurtoodu way koriyeen ayagu macsiyeed kumay dhicin zina kumay dhicin dambi kumay dhicin nidaamka loo sameeyay waa nidaam la yiri dharin waxdayna zinada iyo xaraanta kaga badbaadino waalidkina carruurtii de kama warwarayo waalidkuna wuxuu jecel yahay inuu been isu sheego riwaayad soo dhigo hablahayga ma sha Allah ma inantaydo ma sha Allah waa inan ilaahay ba subhanahu wa ta'ala igu manaystay oo jilbaabka miyaad arkaynin oo ma sha Allah hada jilbaabka makeup ugu hoos jira oo markay halka tagto bay xamuradii jacis ka siinaysayo waaba huuriye yar ma oga intan ugu tagnay hablo ugu tagnay iskuulo aan ugu galay inanta Soomaaliyeed oo xijaab iyo cabaayad lagu yaqaano haddana mini skirt xirano meel walba iska daldaloolisayo halka ordaysa ka badan timahaaga laakiin marka inantii tirado waa ishesheen alxamdulillah way is aaminayaan mashruucaygu hadii goor uu iska fara badan yahay iska raalihaada waqtigiina waan intii laygu tala galay waan dhaafay جزاكم الله خير إلهي نبدباديو أجمعين جزاك الله جزاء الله سبحانه وتعالى شيخ سعيد إلهي خير السيو إننا نبغى نفعه وأنا ذا السيو نقاس